gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo warramay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in guud ahaanba deegaamo fogfog oo ka mid ah gobolka Sool ay si rasmi ah u gaadhay diiwaangelinta codbixiyaashu waxaanu sheegay in guud ahaanba deegaamadaasi ay si rasmi ah dhawaan ay bulshada gobolku ay ugu dareeri doonaan doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee dalka ku soo foolle hadalba male waxaysan gaari jirin meelo fara badan oo deegaanka kamid oo magacyadu iska jireen laascaanood area ma dhafta laakiin imika dhinaca xadka Itoobiya iyo dhinaca xadka Soomaaliya la leenahay labadaba way soo taabatay diiwaangelintaasi dadweynuhuna si taabala bay ogolaan saddex degme si fiican uga dhacday waa laascaanood iyo xudun iyo taleex runtii shacabka uga mahadcelinaya maanta waxaynu taaganahay kaar qaadashadii iyo doorashadii dadkuna way u heelayeen maanta in xildhibaanadii golaha baarlamaanka la soo baxaan iyo golaha deegaanka imika waxa noogu daran aan wadno operation lagu jiro waxay maalmo meel bal taagan yahay horumarka waxa kamid ah in iyagu maanta isku haystaan ana xildhibaan noqonaya shalayna waxa la cid hawshaas buuxisa marka dadkaas commitment waxaan u dirayaa fariin waxaan leeyahay maanta kaar bedelkiiba magaaladiina soo gaadhay kaarka wixii kaarku ka bedelanay bedesheen wixii kaarku kalumana hadda bacdin qofkuna waxa fiican inuu juudigiisa meesha ugu tago talabaad waxa weeye kaar qaadashadii iyaduna soo dhow inay kaarkiisa buuxo u qaataan saddexaadna waxa weeye inay dadku si fiican isugu soo baxaan maanta codeynta si ay u kasbadaan inay xildhibaano badan oo golayaasha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ay la soo baxaan intaas ku wacyigelinayaa inta oo maanta fariinta noocaas u baahan in la gaarsiiyo maanta isma weydiinano diiwaangelin ma la gelayaa iyo halkee la ka dhacday iyo halkaas guud ahaan gobolka Sool meel aan soo taaban ma jirto goobihii la keenay guddiga doorashooyinka qaranka ay keeneen dhammaantood mid walba boosashinkeedii baa tagtay dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire waxa uu sheegay in guud ahaanba shacabka gobolka Sool ay aad ugu baahan yihiin lacagta shilinka Soomaaliland oo ay sheegeen in guud ahaanba la soo gaarsiiyo gobolkaasi taasi oo sheegay in ka maamul ahaan ay wadaan waqti xaadirkan sidii gobolka Sool lacagta shilinka Soomaaliland si rasmi ah lagu geyn lahaa wallahi shacabka Sool aad bay u soo dhaweeyeen lacagta jamhuuriyadda Soomaaliland ee shilinka Soomaaliland in la soo gaarsiiyo dadweynuhuna aad bay ugu heelan yihiin waxaan sugaynaa intii lacagta la soo gaarsiin lahaa dawladahana waynu u ballan qaadnay in shacabka lacagta loo geeyo oo la gaarsiiyo oo lacagta shilinka Soomaaliland uu ka shaqeeyo maanta laascaan dollar kaliya ka shaqeeya runtii waan uga mahadcelinayaa runtii madaxweynaha iyo hay'adihii ku shaqada lahaa inay u sii daayeen dadka inta lacagta shilinka Soomaaliland la geynayo inay si isticmaalaan fractionkii dollarka xaaladda gobolka Sool ayaan weydiin doonaa gudoomiyaha gobolka Sool haddaan ka warbixiyo Sool waxay tahay maanta war uma baahna Soomaaliya xitaa war indha dhaama war dhafoor buu ku yaala nabad baa ka jirta horumar baa ka jira waqtigana waxaa diyaar garow loo wadaa sidii loo diyaar garoobi lahaa in doorashadii la galo golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka maanta waxaa laascad ku sugan oo shalay aad wafti ballaaran oo wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo wasiiro ka kooban oo wasiirka warfaafinta ku jiro oo ka howlaha guud ku jiro halkaan ujeedada u tageen waxa weeye dadka inay soo xulaan xildhibaanadii iyo dad ka mid noqon lahaa xisbiga kulmiye golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka insha Allah marka taas shaqadii qaranka ayaa lagu jiraa Sool maanta waa meesha wufuudda badan iyo dawladnimadu ay ka hana qaaday ilaahay baana mahadda iskale waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi oo noo sahlay in shaqadaas qabsoonto oo maanta